السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسر هذا قرحنت جريها مركو هروح عند الله هاي دمانتين رمضان مبارك. جرينا عرقتان واحد قلي مولد أما بمدوجا واحد عرقتان كل شيء جريها واحد قسم يسبدل عالمية أو هيرك وقرح بدنا سيدا قرحنت جريها كنت قانان سنة كله وعرقتان داوديال سيداس أيانو بدلنا واحد إلى داوتان إن شاء الله. بروسيسك يسانو بدلي تاردنا كل يومها حتى قلالك أو صدنا أو ندتوستوني يسانو بدلي حرفه برشوي إلين ما ليلو ولياني قوي بحنورايو عراقايا وين قرحنتا guryaha waa run weeyaan ilow ma laha xirfadaha barataan waxaan rajeynayaa inaad xirfado badan barataan oo channelkan ka barataan waana sababta ay muhiim u tahay inaad subscribe saarataan oo belka amaba maxay channelskana furataan si aad ula socotaan barnaamijyada dambe soo dhigi doono insha Allah. Daawadayaal saad aragtaan horta waa inaan dilaa waxaan marka hore oo aan qariyaa moodkan markaas aan kadib rijada isticmaalayaa sida halkan aad ku aragtaanba waxaan isticmaalayaa mold away ayaa kan waa mold killer basically wuu dilayaa halka hoosta waxa ku qoran removes mold and unsightly black spots prevents reappearance and regrowth. daawadayaal mar walba health and safety sanka waa inaad xidhataa haddaad wax indhaha ka galayso indhaha waa inaad xidhataa waxaan waad buufinaysaa oo yacni waad buufinaysaa markaad buufiso haddaad doonto laba nooc bay kala yihiin mid waxa jira isagu kala oo video kala aan ku soo YouTube ku jira oo markaad saw spray garayso soo qaadaya madawga laakiin macna ma sameynayso haddaad soo qaadiyo haddii kala toona rinjigi loogu talagalanhayaa mold paint marka waad aragtaan halkaas hallway-gii bay ahayd imika waxa soo galay qolkan waxa seexda inaan kan qolkiisa waad aragtaan meel deeruntii lagu noolaan karo maaha haddii xaqiiq laga hadlo laakiin haddana dee waad iska garanaysaa dhibaatooyinkan oo kale badana adigoo maalin walba nadiifinaya haddana wuu kugu soo noqon karaa waayo waxa weeyaan wax ma garanaysaa u baahan treatment ama in la dabiibo ma garanaysaa gashada alaabteedii hadda waan buufinaya saad aragtaan yani markaan buufiyo waan deynaya ilaa 15 daqiiqo meelahaas iska deynaya 20 daqiiqo kolba inta ku qalalayo big bag yeah I told you. It's a bad area, man. It's very bad, yeah. So don't worry, we'll... Because the radiator is warm, isn't it? It's a good warm radiator. Can you turn off this radiator here? No, I have to switch it off. Can you switch it off? Switch it off. Yeah, please. waxaan sameynayaa gurigan aad aragtaan oo runtii guri dhintay ah saad aragtaan marka moldkii baan treat gareynayaa saad aragtaanba siduu yahay waad aragtaan baan u malaynayaa saad aragtaanba gebigiisu waa guri dhintay marka de meelihii oo dhan baa idin tusayay markii ma garanaysaa ilaa markii meelahan idin tusayay waxaan idin tusayay weeyaan marka gebiga gurigu suu dhan yahay waa wada noocaas meelihii kale oo dhan waan treat gareeyay meelahan kan isagu anti mold paint ban imika isticmaalaya waxaan darkaysaan hadda isticmaalaya marnaya obviously one spray gareeyay mold spray halka yaala baan ku qabt ayaan mariyay saan tusay obviously laakiin problemka labaad ee isna soo baxay waa kan waa leak marka kan wuxuu noqonayaa damp marka soo wanaan damp si u mariyaa oo rinji kala laakiin saad aragtaan boolaalayaal gebiga guriga bada waxaan ku waa shahatay waad aragtaan baan u malaynayaa markaas aad aragtaan waxaan marinayaa anti mold pinky waxaan ku risi ma garanaysaa gurigan oo aan ka soo saaray nooc kale ayaan tusay oo qurxinta guryaha siilinkan oo cadeeyno ay tus doonaa asnoo istaa iyo goodho insha Allah hadii la yiraahdo daawadayaal wixii madooba wuxuu ahaa mold marka moldkii isaga waan saxay moldkii laakiin waxa ku kala duwan mold waa waxa madow waad aragtaan isaga waan saxay oo waxaan mariyay rinjiga loogu talagalay anti mold paint laakiin kani mold maaha marka waa kala fahantaan mold iyo waxa loo yaqaano mold iyo hadii la idinkeeda leeyahay waxa loo yaqaano leak marka kani waa leak waxa weeyaan biyo ku soo daatay meesha weeyaan saad aragtaanba taas lagu gartaa dareerkaas lagu gartaa leadka dareerka ah inuu waxani mold yahay in kale saasaad ku garan kartaan walaalayaal marka isku qaldina marka iyada haddaan mariyo rinjigan caadiga waa ka soo dhex baxaysaa un sida halkan yar imika aan tusayo halkan marta oo tusaalan u mariyay rinjiga caadiga baan mariyay kii caadiga ahaa iyo kii anti mold ka ahaa midna waxba kama tarayo waayo waxay ku tusayaan waxba ka qaadahayn marka waa inaan mariyaa waxa loo yaqaan maxay damp seal
one coat damp seal seals patches of damp and prevents from reappearing waxaana ka caawisaa inay dib u soo noqdaan bay ka joojinaysaa walibana waana qaranaysaa marka walaalayaal wakaas always marka wax soo iibsanaysaan haddii aan videoga YouTube-kaygan idinku sharaxin even haddaad idinku sharaxin mar walba materialka soo iibsataan waa different imika kani waa poliso waxa weeye shirkadaas samaysay laakiin shirkadaas kan samaysay hadii laakiinse shirkado badan baa jira marka instructionka xagga dambe ku qoraan before you use halkan oo kale internet isticmaalin ka hor waxaad samaynayso how to use sida loo isticmaalo iyo after use marka isticmaasho kadib markaas weeyaan walaalayaal markaas la socday marka waan marinayaa daawasho wacan marka samaynayso net space haysanin waxa la sameeyaa alaabtan oo kale xaggan u soo rar dhexda dhig dhinaca samee xaggan u soo wada rar xagga hadana rar kolba dhinaca sameeyso dhinaca kale waxa tusayaa ceiling kani sidoo halkan ka yahay isoo kala duwan hadoo fiirsada Somartan walaalayaal tii uskaga ahayd wata tii nadiifta ahaydna waa tan waxaan u maleynayaa waad aragtaan waxa u dhaxeeya ma isku dhawday yeah it's not I'm trying to say the difference between the two the bit that we're done and the other bit is completely different isn't it so as far as this room is concerned the damp the molds being protected and killed the damp has been taken care of everything else we're going to go white first we're going to use the white same time as the ceiling as a base for the next color and then finish this off finish this wall do a bit of caulking you know a bit of touch up here and there a bit of filling whatever and then boom when it dries come back and do the color and then we finish off with the woodwork like the doors frames and skirtings so here we go let's get it I'll show you guys how it looks after dhakadaasaan idin tusayaa qurxinta guryuhu siday intay isku sinto u qurxiso ee dhakada uga dhigto qurux ayaan idin tusi doonaa insha Allah taala qolkii muxuu ahaayay wada moldka ahay xaggaas oo dhan iyo daaqadiisa iyo wixii dhan waa kan gabigiisa waxaan ka dhigay ashcalaa saad u aragtaanba warka waxay tusayaa daaqadii wada mold meeranka ahayd way ka arka gabigeedaba waan bedelay daawadayaal waa daaqadii dhakada ahayd ee qolka hurdada oo imika aan ka dhigay dhagay waa qurxinta guryuhu si ay wax u bedesho waa indhihiina arka tushii sare ee moldka meeran ahayd way ka arka gabigiisiiba mold dambe male halkii dhinacii moldka lahayd way ka dhinacyadii oo dhan girgiradii oo dhan arka ceilingki waad aragtaan baan u maleynayaa gabigiisaba wac baan ka dhigay wac gabiga gurigii aad markii arkisan qolkii hurdada ee magaranaysa islaanta ay kaleysay weeyaan qof weyn baa gasho caafimaadkeedana uma fiicna markaas aad aragtaanba waxaan ka dhigay meel nooc kale ah wakaas qolkii fadhiga oo idinka narka gabigiisa isna kalarka hallway oo kalma ka dhigay meeshii markii uska gaadiyaabaysa way idinka arka waxaan ku yiri gabiga meesha soo idinka arka maaha ashcala qolkan waa qolkii ma garanaysa markii ay tusay wada uska haasan aha way idinka arka baan u maleynayaa qolkii marka ay tusayay isagana way idinka arka moldkii inuu tagay baan idin tusayaa gabigiisa dhinacyadii oo dhan way idinka arka waa ka moldkii tagay way idinka arka uu tagay daaqadii markii sidaad arkaysan ahayd way idinka arka quruxda hadda waayo waxa weeyaan walaal shaqo ay qurxinta guryuhu qabatay oo aan noocan soo baxayn ma jiro hallwaygiisa aad aragtaanba meeshii wada moldka lahayd waa madawga ahayd way idinka arka saad aragtaanba laba kalar baan kale skaatika cadaan framemadii cadaan saad aragtaanba brand new ash ala way dhalaalayaan arka joog maahe sidoo kale halkan albaabadii oo dhan saad aragtaanba meeshii wada ahayd maxay tahay maxay moldka way idinka arka timeedku wax ku aragtaan gabigeedu wata aad aragtaan sida marka aan ku xidho halkan way idinka wada arkay gabigu wada say ahayd way idinka arkay baan u maleynayaa imikana way idinka arka meeshu masla meeshiba meeyay saasan wuxuu bedelnaa qurxinta guryaha daawadayaal saad halkan ku aragtaanba albaabadii iyo freymadoodii iyo darbigii iyo ceilingkii waxaan ku yiri meel walba waxaanu ka dhignay mac baan ku yiri mac meey yiraahdaan caruurta marka ya ma sha Allah waad aragtaan definitionka iyo say isugu soo baxayso labadaba waxaan ku yiri shirkadda qurxinta guryaha iyo qurxinta guryaha TV waxa waaye quality-gaas lagu yaqaanaa oo ma garanaysa customer-kana happy weeyaan How satisfied are you with the job that I've done for you here? Very satisfied. The mold is completely gone. The decorating is high quality and I'm very happy.
Thank you very much indeed. That's it. So as you can hear, guys, the customer is very happy. The problem is solved. Qurxinta Guryaha TV, Qurxinta Guryaha Limited. Subscribe, like, and share. رسول كني محمد ربي توصل